مدحوينها جمهورية فدرال كالصوماليا مدن حسن شيخ محمود قدوميها قولها شعبك هذا المدولي برايم منستر كحيجينك labadii gudoomiye ee hogaaminayay doorashadii dalkan gudoomiyaasha gudiyadii doorashada gudoomiyaha guddigii federaalka iyo gudoomiyihii khilaafaadka iyo dhammaan xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee jooga iyo xukuumadda wixii ka jooga dadweynaha Soomaaliyeed ee sharafta leh fanaaniinta kala duwan ee halkan inagu madadaalinayay ee fikradaha fiican inoo soo jeediyay iyo dadweynaha oo dhan aad iyo aad baan u salaamaya salaan kadib waxaan filayaa hadda khudbo dheeroon halka ka jeedinayaa ma jirto waa hal eray waxaan odhanayaa waynu sheegnay dhibaatooyinkii ina soo maray ee muddo soo taagnaa dhibaatooyinkaa waa ka gudubnay oo maanta waxaynu dhisannay haykalkii dowladeed oo madaxweynihii oo ugu horeeya la doortay iyo baarlamaankii oo la doortay waxa inoo haray waxa weeye xukuumaddii oo aynu dhammaystirno waxaan leeyahay oo keliya dib yaynaanu noqonin ee hore aan u soconno dib yaynaanu noqonin ee hore aynu u soconno oo ha noqoto anigoo hal eray waan aaminsanahay waxaan aaminsanahay de kolley qabaa'il baynu nahay laakiin qabaa'il dawlo intaynu ku dhisayno dawlo ma noqonayno waxaynu u baahan nahay iyadoo qabaa'ilka nafteeda lagu dhisaayo way dabcan dadkii baa sidaa u kooban laakiin qabiil waliba wuu leeyahay qof aqoon leh garanaya waajibka xilka loo dhiibto si fiican u gudanaya leeyahay kolkaan sidaa leeyahay on leeyahay qabiil intaynu wax ku dhisayno dawlad noqon mayno waxaan leeyahay dadkii munaasabka ahaa lama geynayo leesh qabiil raggu waa 100 leh dumarkuna waa 50 leh ma kala fiicna oo kulligood waa isku qiimahaasay taagan yihiin kolkaa marka laga hadlayo dee reer hebel kolkaynu nidhaahno waxay keenayaan qofka ay kolkaa rabaan bay keenayaan ee ma iyagu ma ku qiimeynayaan dawladnimo iyo waxtarka halkaas lama raadinaye hebel la jecel yahay ayaa la keenaya sidaa la ajligeed dib yaynaanu noqonine hore aan u soconno halka fanaaniintu waxayna yidhaahdeen taariikhdu dadkay bartaa doraad waxay faleen cidna ma diido cidna ma doorto oo taa micnaheedu waa maxay taariikhda la soo maray haddii taariikhna waa la soo mari karaa in laga digtoonaado laga fogaado taariikhda la soo maray waa fiicnaan kartaa in la isticmaalo horena loo mariyo weeye taa fiican sidaa la ajligeed madaxweyne xasan sheekh maxamed waxaan 100% hubaa 4 sano uu dalka soo hogaamiyey wuu garan karaa maxaa ka khaldamay 5 sanana gebigiisuba dalkan meel ugama bixin wuu joogay xogogaal buu yahay wuu yaqaanaa maxaa khaldanaa ee la maray waxaan 100% kalsooni ku qabaa tii isaga ka khaldantayna wuu sixi tan la sameeyayna wuu ka leexan oo wuu sixi inuu jid fiican inagu hogaaminayo ayaan qabaa dib haw noqonina waad mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin waan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa gudiyadii hawsa soo qabatay iyo prime ministerkii yani sidii loo amaanay
وحوي وهؤلاء قبتين أي الله أمانية واد مهسنتين ما تسلم ومهسنها يقدميها